markaad subaxdii hurdada ka soo toosid dareenka caajiska iyo cagajiidka aad ku jirto sidee subax qurxoon waad fircoon tahay energy badan aad haysid loogu bedelaa maalinkaaga adoo fariid ah loo qaabilaa waxaan halkani kugu soo gudbinayaa dhowr qodob oo aan subax kasta sameeyo iga dhigay qof awood badan subaxdiisana ay qurxoon tahay intaan u gudagelin sheegidda qodobadan waxaan kaa codsanayaa in muuqaalka la garayso si dad badan u gaaro laagtani waxay naga caawinaysaa in muuqaalka uu dad badan gaaro saaxiib qodobka koowaad waxa uu yahay make your bed firaashkaaga hagaaji soo kac xilli ka hor salaada qubayso cadayo 2 rakac sunnaha tuko sariirtaada hagaaji qolkaaga iska nadiifi carfi intaada masjidka aadin marka aad ka soo laabanayso masjidka kuma qabanayso inaad hurdo ku laabatid waayo firaashkaaga uu hagaagsan yahay qolkaaga uu carfayaa caraftaasi tamar fircoon oo aad wax kale ku qaban kartid ayay ku siinaysaa qodobka labaad waxa uu yahay jimicsi samee jim haddii aad aadi karto waa caadi haddii kale qolkaaga ku samee jimicsi yar oo dhididkaa keeni kara jimicsiga waxa uu kordhiyaa awoodda shaqada jirka iyo maskaxda waxuuna ku siinayaa energy badan maalinkaaga waxaad ku qaabilaysaa adoo dhiiran faraxsan diyaar u ah inaad aqbasho maalinkaaga xitaa goobta shaqada ama waxbarashada waa lagaa dareemayaa in subax wanaagsan aad haysato dadka kale la mid ma tihid waad doola cadaynaysaa halka dadka kale uu caaji saaran yahay weli hurdo ay sii rabaan saaxiib jimicsiga waxa kaliya awood kuu siiya in maalinkaaga aad dhamaysato adoo energy badan haya qodobka saddexaad waxa uu yahay wax akhri buug akhri ama maqaal akhri xitaa hal bug may noqoto waxaad ogaanaysaa wax cusub heerka fikirkaaga maskaxda uu dhismayaa waxaad noqonaysaa qof meel dheer wax ka arka qof curin badan hadalkiisu dhammaystiran yahay dhinacyo badan wax ka eega maadaama akhriska ogaalka uu kordhiyo akhriska uu ka ballaaran yahay sidaan u malaynayno laakiin waxaa garan karaa qofka wax akhriya qodobka afraad ee ugu dambeeya aan rabo inaan kula wadaago waxa ay tahay subax kastana aan sameeyo maalintaada waxaad ku qabanayso qorshayso subaxii saaxiib waan ogahay waxaad isleedahay maskaxdeeda ayaan ku xasuusan karaa laakiin imise habeen marka aad sariirta tagto kugu soo dhacday waxaad rabti inaad qabato maalinka laakiin aad ilowday ka waran haddii aad qori lahayd ma ilaabi lahayd jawaabtu waa may qorista waxaad qabanayso maalinka waa muhiim waxayna kuu fududaynaysaa in maalinkaaga uu kugu soo dhammaado sida aad rabto adoo waxba aadan ilaabin waa laga yaabaa in 1 iyo 2 aad qaban weydo laakiin waxaad qabanaysaa maalinta ku xigta adoo og in shalay aad dhaaftay waxan inaad maalinkaaga ku qorshaysan yahay wax ay kaa badbaadinaysaa in waqtigaaga maalayacni uu ku lumo meelo aadan rabin aad tagto saaxiibo aadan la banansanayn aad la kulanto aad wada fadhiisataan waa muhiim in jadwal aad samaysto maalinkaaga haddii iPhone aad wadatid waxaad ku qorshaysan kartaa abka reminder la dhaho xitaa waxaad ku qori kartaa waqtiga uuna ku soo xasuusin karaa haddii Samsung aad wadatidna waxaad soo degsan kartaa Google Sheet halka aad ku qorshaysan kartaa maalinkaaga waxaad qabanayso saaxiib qodobadaas waxa aan sameeyo maalin kasta waxayna ii qurxiyeen subaxdayda adigana waxaan kuu rajaynayaa haddii sida aad samaysid in natiijo wacan aad heli doontid nabadgelyo